shirkan jaraa'id ay isugu yimaadeen saraakiisha amniga degmada Wallaweyn ee xarunta martisoorka gobolka Shabeellaha Hoose ee ugu horeeyay gudoomiye ku-xigeenka amniga degmada taliyaha saldhigga booliiska degmada iyo taliyaha ururka ciidamada daraawiishta horseed ee degmada Wallaweyn ayaa waxay kaga hadleen mootooyin aan heebtooda la aqoon inay khalkhal amni ka wadaan gudaha degmada Wallaweyn marka la gaaro habeenkii gudoomiye ku-xigeenka amniga degmada Wallaweyn Yuusuf Cali Buule ugu horeyn goobtaasi ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedada shirkan jaraa'id waan iska kulunay iska koynay dadka amniga ku sooyay anagu gudoomiye ku-xigeenka amniga ee degmada Wallaweyn iyo taliyaha saldhigga ee degmada Wallaweyn iyo taliyaha daraawiishta xoogaa ayaamahan oo sanay badata mootooyin oo meel ku kooyan iyo meel injeedan aan la ogayn ilankii lahayn aan la ogayn iyo magaaladaas ka badadeen hadina may kala sunay badada isqabqabsi iyo anilay iyo la soo hadi kan la waali iyo badati marka ma rabnay arimahaasna aan ku hadalno marka arimahaasna aan isku kooyne kolba arimahaas wali lagu baahan may ku hadal doonaan lamada taliyaha daraawiishta ururka Horseed degmada Wallaweyn iyo taliyaha saldhigga degmada Wallaweyn iyo faahfaahin doonaan taliyaha saldhigga booliiska degmada Wallaweyn Cabdalla Boorow ayaa ku amray in gaadiidleyda gaar ahaan kuwa isticmaala mootooyinka ay iska soo diiwaan geliyaan saldhigga booliiska degmada Wallaweyn awaamirtan ayaa imaanaysa xilli gudaha degmada ay soo galayaan mootooyin aan heebtooda la aqoon isla markaana khalkhal geliya ammaanka degmada waa sida taliyuhu sheegay qofkan isa soo diiwaan gelin talaabo sharci ayaa laga qaadi doonaa ayuu taliyuhu sii raaciyay sidoo kale taliyaha ayaa sheegay in maanta markay saacadu ku beegantahay kuwada ay barka galabnimo gaadiidleyda lagu soo rogay bandow meeshaan maanta aan shirkan jiraad ku qabanayno waxaan iskugu imaanay noogu weeyahay gudoomiyaha amniga aniga oo ah taliyaha booliiska iyo taliyaha daraawiishta waxaa la barbaryaha nagu soo batay dhinaca amniga oo mooto habeenkii saq dhexe waxay magaalkan ay ka sameeysaa cidna aan ogeyn darteed halkaan iskugu imaanay aan ka wada hadalno marka waxaan dadka mootooyinka faykonka oo leeyahay oo loo yaqaano oo lablugaaleyda waxaan dadkaasi aan u sheegaynaa inay saldhigga yimaadiin oo isoo diiwaan geliyaan waayo waxaa nagu batay iska qabsi mootooyinka ah mootooyinkii habeenkii wax lagu dhaco oo lagu boobo oo aan cidii aan lahayn aan garanayn ilaa hadda oo magaalka meesha waan ka galayaan taasna waxa keenay amni xumo darteed marka waxaan rabnaa nimanka mootooyinka iska leh mise dadka mootooyinka iska leh aan yiraahday jooga degmada Wallaweyn inay yimaadaan saldhigga ay isoo diiwaan geliyaan maantana ay tahay taariikhda 16 ilaa iyo 1 bisha fursad ay haystaan inay isoo diiwaan geliyaan ay yimaadaan degmada ama saldhigga tan kale cidii imaaweyso oo amaamirtaas anaga bixin qaado weyso talaabo sharci aan ka qaadanaa cid kasto mooto leh tan kale oo aan u sheegayo waxay tahay degmada 12 saac meeshii laga gaaro wax socod karo oo magaalkan oo jiro male maadaama saas aan waxaan u leenahay amni darteed magaalada 12 saac iyo bar waa bandow leenahay bandowgaas oo 12 saac ee bar aan sheegayno ma aha dadka oo lugtooda socda ma aha dadka oo shaqo waqti dambe ka imaanaya shaqadii habeenkii ma aha waxa waaye dadkaas hadaan biyaanino arintaasi waxa waaye waa gawaarida hoomeyda mootooyinka waxa waaye kuwaas waaye aan leenahay 12 saac iyo bar wax mooto la yiraahdo ma soco karto wax gaari la yiraahdo 12 saac iyo bar dhaafana magaalkaas ma soco karaan cidii amarkaas anaga aan bixino qaadi weysana iyadana talaabo sharci aan ka qaadi doonaa billahi tawfiiq waxa bilaabana maanta 12 saac iyo bar ugu dambeyntiina taliyaha ururka ciidamada daraawiishta koonfur galbeed Soomaaliya ee degmada Wallaweyn Cali Juu ayaa sheegay in habeenkii ciidamada ay sameyn doonaan roondo lana arki karin wax mooto socota anoo taliyaha ururka daraawiishta degmada Wallaweyn shacabka kanool magaalada Wallaweyn wala sheegay sida amarka taliyaha saldhigga booliiska mana siin sheegay 12 saac bar wala ku dambooy
ini wal baawur BLA iyo mootooyin saddex lugoodle iyo laba lugoodle iyo wali haato nooc kasta haatoy ini wal soo argo korna mid kale 12 saac ibar ama 12ka walaa ku damboy hameenka wali ku yaabay ini oo askar roonda magaalada Hagala shacabka ka nool magaalada wala in sheegay ini oo baawurtiyo iyo mootooyinka horeysadaan si amni shulun xaqiiji wabillahi tawfiiq insha Allah Cabdiqani Maxmed Xasan raadiyo telefishinka dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya degmada Wallaweyn ee xarunta Martisoorka